aadan horumarka iyo dowladwanaaggu inuu yahay dadka dhalinyaradu waa ubaxii dalka iyo jirkii dalka u soo karayay waana dadkii hanti lahay dalka mustaqbalkiisa dambe dalkiisana waxaa iskale dhalinyaradiisa marka dalka haddii aanu ka hadlo dhalinyarada doorka kaga aadanaya waxa ay tahay marka hore inay iskood wax u qabsadaan dhalinyaradu wax bartaan oo ay ismuujiyaan kartidooda iyo wadanimadooda ay yihiin had iyo jeer u taagan oo ka fakara in ay yihiin muwaadiniintii dalkan iska lahay dadkii dalka dhaxli lahaa in ayagu yihiin oo ay wax bartaan fast food waa in ay wax bartaan qofka dhalinyarada hadduusan waxba baran uusan education lahayn waxba kama qabsan karo dalkiisa oo waxba kama wadaagi karo dowladda dalkiisa kadhisa fast horta dhalinyarada waa inay wax bartaan waa in ay iska dhaqaajiyaan oo ay fakaraan dalkani runtii dhalinyaraan usoo halgamtay xorriyaddiina u qaaday marka haddii aan usoo dhaano waa ilaa hadda intii wax laga gaaray wixii ay ka qabteen waxaa ka mid a runtii waxaan dhihi karaa hadda dowladda jirta ee Soomaaliya boqolkiiba 80 waxaa lagu qiyaasaa dhalinyaradu inay yihiin dad ka mid ah 80% markii 20 laga reebo wasaaradaha dhinac waliba waxaad arkaysaa xitaa baarlamaanka waa kusoo diray dhalinyaradu runtii kaalin firfircoon ayay muujinayeen sababinka u dambeeyay inkastoo ay nasiib darro ku dhacday 20 sano burburka dhalinyarada musiibooyin badan iyo ay soo wajaheen qaarkood ay xiriirka isaga baadeen haddana waxaa jira qaar u dhabar adeegay oo wadanimadooda iyo kartidooda dalka ilaa hadda u taagan waxaad arkaysaa ciidamada iyo qaranka marka lagu dhahayo nin oday oo 40 sano ka weyn oo wato ciidan jiro kulli ciidamadu waa dhalinyaro wasaaradda marka ka shaqeeya xafiisyada fadhi waa dhalinyaro runtii dhalinyarada kaalin firfircoon baa ilaa hadda ka qaadanaya laakiin sidii la rabay waxaan dhihi karaa weli laakiin way iska imaan doontaa markii laga gudbo xaaladda adag ee waddanku uu hadda ku sugan